السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وأنا السلام يا دمانتين إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا كصلينا عليه الصلاة والسلام. waxaa idiin waday maadaama gabdhi walaalaheen yidhaahdeen na tus magacayga saanu aragno insha allah waa idii soo iibiyey marka insha allah isaga oo anigu buudaran haystay laakiin isaga oo midho ah ayaan soo iibiyey insha allah. asxaabta kusoo dhawaada faa'iido badan buu leeyahay. waa kan isagoo midho ah insha allah. waa kan kamoon xabba kamoon baa la yidhahdaa kaman seed ayaa la yidhahdaa kaman seed ayaa la yidhahdaa carabigana waa kan kamoon xabba. marka xabada waa kala weeyaan waa kalan ku daadiyey maanta halkaasaan ku daadiyey insha allah. qayb kale ayaan rabaa inaan ka sameeyo si aad uga faa'iidaysatiin insha allah. waa kamoontii aan maalintii hore sameeyey insha allah. koley dadka qaarkood xawaashilbina u yaqaanaan oo waxa weeyaan hilibka iyo cuntadana waa lagu darsadaa. kamoontu waa dawo marka asxaabi ah laga faa'iidaysto. marka insha allah kamoon waa taasi waad aragteen baan u malayn insha allah. waa taa warqadeedii si fiican baad u arkaysiin insha allah. wakaa marka asxaabi meel walba waa yaalaa kaasi waad ka helaysiin meel walba. marka insha allah waxa aan rabay insha allah inagoo qaybtii labaad raba inaan sameeyo oo waxa weeyaan sidii uu u soo degaya amba aan iga soo sheekeeyey gabadh ayaa samaysay oo uur ku qaaday baa idin soo yidhaahay. marka insha allah kamoonta markaan ka faa'iidaystano waxoo kale ay samayn jirtay way isku kubayn jirtay amba way isyar saarsaari jirtay. waa idin tusayaa dabka ayaan soo saarayaa markaan yar caseeyo insha allah yar kululeeyo insha allah. isagoo kulul ayaan maxaa la yidhahdaa labada dhinac amba caloosha xundhurta hoosteeda intaa laga bilaabo ilmagaleennada dhulkaas ayay iska yara saarsaari jirtay isagoo yar kulul oo iska yara kululeyn jirtay. marka insha allah sidii aan qaybtii hore aan wadnay sidaa aan u wadno sidaa aan u isticmaalno sidaa tartiibta aan u soconno insha allah. marka asxaabay dabkan soo saaraya ha laga faa'iidaysto insha allah. marka asxaabay markuu sayar u casaado ku yar kululaado waa iska yar kukubaynaysaa. waxa weeyaan si biyo kulul ka samaysan kartaa haddaad dootid waad isyar saarsaaraysaa xundhurta inta ka hooseysa insha allah. wakaas asxaabay wakaasi waxaan kusoo shubay insha allah. haddaad doontaad waad badsanaysaa laakiin insha allah wakaas saasoo kale intaad yar badsatid ayaad yar dul saarsaaraysaa xundhurta hoosteeda oo dhan ayaad saarsaaraysaa ilaa meelaha xasaasiga waad iska saari kartaa. waa yar diirimaad waxa weeye iska yar kukubaynaysaa insha allah. waa gabadhu waxa ay samaysay camalkii ay qabatay ayaa idiin sheegaya. markay samaysay cajaladii hore waa baartuu weeyaan waa yar kululeeyey waa aniga dhitusay maqlaha. markaas asxaabay xundhurta inta ka hooseysa oo dhan waad yar dul saarsaaraysaa waa yar diirimaad. marka insha allah markaad caadada leedahay waad isticmaali kartaa. caadadii kaasoo safaynaysaa waxa weeyaan kuleelkaasi ku kaa keenaya midda kaleet wax kulkuluna inaad cabtid aada boo wanaagsan tahay. marka insha allah cajaladeydu kuma badinayo insha allah. waa qaybtii labaad tii hore iyo noocanba ha la sameeyo insha allah. labadaba ha la isku wado insha allah. markaad caadada ka meeratid ilaa maxaa la yidhaahdaa tiyada kale insha allah in la isticmaalo biidni illaahi kariim. awlaad saalixa ilaahi subxaana watacaala idiin weydiinaya insha allah. fariimihiina waan helay komadka waan helay walaalaya waxaad ii soo sheegtiin halka aad joogtiin africa halkaad ka joogtiin inaad ii soo sheegti weeyaan insha allah. nambarkayga ayaan kuu soo qoraya si aad iigu soo dirtid adreeskaaga. haddii dad imanayaan sida gabadh hargeysaan joogaaba i tiri gabadhaas oo kale insha allah dadka hargeysa imanayaan ugu soo dhiibi biidni illaahi kariim. waad heli doontaa kiniinka insha allah waad ka faa'iidaysan doontiin. ilaahay dartii baana idiin siinaya waad ii soo ducaynaysiin idinkuna anna waa idiin soo ducaynaya biidni illaahi kariim. awlaad saalixa ilaahay subxaana watacaala idiin weydiinaya idiina baryaya inuu ilaahay awlaad saalixana siiyo. waan idiin sheegay gabdho hore aan u diray ayaa ku qaaday ciyaal gabadhina inan bay ku dhashay gabadhna waxay ku dhashay wiil iyo gabadh ayay kala dhaleen. gabadhna waxa weeyaan
gabadh bay dhashay gabadhna wiil bay dhashay marka biidnillaahi kariim ilaahay baa awladahay laakiin inaa waxa weeyaan la isbanaanixiyo amba maxaa la yidhahdaa la isdaweeyo amba wuxuun la sameeyo insha allah marka asxaabay wakaasi intaad yar badsatid xundurta hoosteeda ilaa intaasoo dhan baad marinaysa marka insha allah kaniinka waa idinku ballan qaaday insha allah waa idii soo diraya biidnillaahi kariim maxaa la yidhahdaa markuu idin soo gaadhana maalintii xabad baad cunaysaa insha allah biidnillaahi kariim waan ka faa'iiday aniga qudhadeeda ayaa mar ka faa'iidaystay ilma galeenka ayuu adkeynaya haddii ay dhibaata jirtana isaga ayaa daweynaya marka insha allah waad iska cunaysaa wax dhibaato uu kuu keenaya ma jirto aniga idila hadlaya waan isticmaali jiray mar baan isticmaali jiray maasha allah marka asxaabey gabadh baan ku dhalay insha allah idinkuna waxa weeyaan wax kale kuma hayaa layidhi bes kaniinkan waxa weeyaan waa folic acid ka isticmaal ayaa laygu yiri kii uun baan isticmaalay marka biidnillaahi kariim idinkana waad ku guuleysan doontiin 2 gabdhood oo kale ku guuleysad badan waa ku guuleysteen doctorad ayaa aniga ii qortay ahayd marka insha allah idinkana insha allah waa idii soo diraya kulli waxa weeyaan dhibaato ma jirta igu tiri oo kaama arkaya dhibaato laakiin kaniinkaasaan kugu waani lahaa inaad cuntid si uu moogta haddii ilmo ilaahay ku siiyo oo kugu adkaado marka insha allah ma aha dhibaato kuma keenaya suran doctor kuma qorin laakiin waxani wuxuu faa'iido u leeyahay dumarka ilmaha iyo waxaas unbu faa'iido u leeyahay waana idin salaamaya dhammaantiin insha allah komadka igu soo qora nambarkaygaan igu soo qoraya sidaad igala soo xidhiidhin nambarkayga whatsappka ayaa idiin soo dirayaa insha allah saasaan wada xidhiidhaynaa si aan adresskaad igu soo dirtiin aad baan idiin salaamaya dhammaantiin biidnillaahi kariim ilaahay awlaad saalixa idiin weydiinaya waana idiin salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalihiina kalena u sheer gareeya insha allah ha iloobina sheerka insha allah biidnillaahi kariim iyo layga hayga iloobina waxa weeyaan dad badan buu faa'iido u faa'iideynaya insha allah asxaabay waa kan insha allah halkaasaan ku shubay wakaasi markaan ku shubay saasoo kale isku yara qaqabanaysaa xundurta hoosteeda ilaa meelahaas oo dhan meelaha xasaasiga kibiya isku yar ku kubaynaysaa kuleelka yar basirta taabsinaysaa meelaha ilma galeenada marka insha allah waa qaybtii labaad weeyaan sidii horena aanu isticmaalno intii khaldada laysku darayay markaa isku dartay sidii aan loo sameyn aad u sameynaysaa tanna haddaad doonto waad badsan kartaa haddaad doonto intaad biyo ku dhex karisid ayaad ku shuban kartaa bahasha biyaha la isku deerideeriyo haddaad doontidna sidaas gabadhu saasay sameyn jirtay waxa weeyaan halka bay ku shuban jirtay way isku yara kukubayn jirtay way isku yara deerin jirtay marka insha allah asxaabay isku deerdeeriya marka wakaasi insha allah biidnillaahi kariim waad ka faa'iidi doontiin insha allah biidnillaahi kariim waana idii soo duceynaya anigana ii soo ducey ilaahay dirtaan u sameynaya insha allah biidnillaahi kariim ayga iloobina sheerta insha allah like-ana ayga iloobina iyo subscribe-ka walaalihiina kale siduu gaadho like waxa weeyaan faa'iido badan ayuu leeyahay walaalihiina kale ayaa arkaya walaalihiina kale si uga faa'iidaystaan biidnillaahi kariim si ilaahay subxaana watacaala awlaad saalixa uga siiyo insha allah saasoo kale aad u qabsanaysaa intaad mare ku shubatay saasaa isku dul saaraysaa marka asxaabay wakaasi insha allah gabdha ay soo weydiiyey oo yidhi maxaa la dhahdaa dawada noo soo dir marka waad ii soo diray idinkoo horta halkeebaad joogtiin insha allah ii soo sheega haddii matalan hargeysa dadka imanayaan usoo dhiibaya haddii muqdisho tahay dadka imanayaan igu soo dhiibaya insha allah dadkaa raadinaya insha allah oo lambarkayga idiin soo diraya whatsappkayga ayaad igala soo xidhiirsay si aad igu sheego qofku markuu imanayo insha allah aan ku wada xidhiidhna insha allah ii soo sheega halkaad joogtiin insha allah aad baa idiin salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh